bismillaahi raxmaani raxiim. subax wanaagsan daawadayaal. qodobada wararka TV saaka idin hayso waxaa ka mid ah faahfaahin laga helay qarax xalay ka dhacay magaalada Muqdisho, Puntland oo xiriirka u jartay dawladda Soomaaliya, tuhun ka dhashay erebixinta Mareykanka ee duqeynta Soomaaliya, dawladda Soomaaliya oo ka hadashay qariiradii Itoobiya ay ka tirtay Soomaaliya, hal askari oo ka soo jeeda beelaha shanaad oo loo xukumay boqolkiiba bajaajle ee lagu dilay Muqdisho. wararka dibadda wararka TV saaka idin haya waxaa ka mid ah ku dhawaad 10 qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay dalka Zambia iyo Rwanda oo Uganda ku eedeysay afduub dadeed. daawadayaal ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan. haddii aad ka mid tahay daawadayaasheena cusub ee barta YouTube-ka, fadlan rukumo barteena si warar iyo warbixino quseeya Soomaaliya iyo caalamka aad u heshid adigoo subscribe dhahaya barteena YouTube-ka. faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helay qarax xalay ka dhacay nawaaxiga xeebta liida ee magaalada Muqdisho. war ka soo baxay taliska booliiska Soomaaliya ayaa lagu sheegay in baabuur laga soo buuxiyay walxaha qarxa la dhigay nawaaxiga maqaayad ku taala xeebta liido ee magaalada Muqdisho, kadibna halkaasi uu qarax ka dhacay. booliisku waxa uu sheegay in aan wax khasaaraha geysan qaraxa, laakiin ciidamada ammaanka ay gacanta ku hayaan 2 qofood oo lagu tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen qaraxaasi. taliye ku-xigeenka labaad ee ciidamada booliiska General Sakiya Xasan oo warbaahinta la hadashay ayaa waxa ay sheegtay in ciidamada ammaanka ay ka hortageen qaraxaasi siday hadalka u dhigtay, iyadoo intaasi ku dartay inaanu jirin wax khasaaraha oo qaraxa uu geystay. dhinaca kale, war ka soo baxay taliska booliiska ee degmada Cabdicasiis ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan 2 nin oo dhalinyaro ah oo looga shakisan yahay in ay ku lug leeyihiin qaraxaasi ka dhacay xalay magaalada Muqdisho. caasimada Soomaaliya ee Muqdisho waxaa maalmihii u dambeeyay ku kordhayay qaraxyada iyo dilalka ururka Al-Shabaab ay ka fulinayaan magaalada Muqdisho, iyadoo ciidamada ammaanka ay aad u adkeeyeen ammaanka tan iyo markii la guda galay bisha barakeysan ee Ramadaan. dowlad goboleedka Puntland ayaa sheegay inay xiriirka u jareen dawladda federaalka ee Soomaaliya, iyadoo weli uu taagan yahay khilaafka u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ka jira dalka. xukuumadda Puntland ayaa ku dhawaaqday in guud ahaan ay joojiso wada shaqayntii kala dhaxaysay dawladda federaalka ee Soomaaliya inta laga heshiinayo arrimaha ay isku khilaafsan yihiin labada dhinac. qoraal af Ingiriis ku qoran oo Puntland ay u dirtay beesha caalamka iyo dalalka daneeya Soomaaliya ayaa ay ku sheegtay in ay joojisay dhammaan arrimihii ay ka wada shaqaynayeen dawladda federaalka ee Soomaaliya, sida dib u eegista dastuurka, qorshaha amniga qaranka iyo hanaanka doorashooyinka dalka ee 2020-2021. Puntland ayaa sidoo kale sheegtay inaysan aqoonsan doonin dhammaan shuruucyada ay meel mariyeen golayaasha dawladda federaalka ee Soomaaliya, sida sharciga doorashooyinka, sharciga shidaalka iyo xeerka canshuuraha dalka oo ay sheegtay in aan lagala tashan. qoraalka Puntland ay soo saartay oo aad u dheeraa ayaa lagu sheegay in shirkii fashilme ee Garowe kadib Puntland ay ugu baaqday dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulada dalka ka jira in la isugu yimaado shir kale si heshiis looga gaaro qodobada salka uu ku hayay fashilkii shirkii Garowe. dhinaca kale, xukuumadda Puntland waxaa dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku boorisay in ay dastuurka ku dhaqanto oo ay ilaaliso heshiisyadii ay hore ula gashay dawlad goboleedyada ee dhigayay in laga wada tashado arrimaha masiiriga ee dalka, isla markaana ay joojiso shuruucda iyo xeerarka aan laga wada tashan ee baarlamaanka ay horgeynayso. warkan qoraalka ee ka soo baxay Puntland ayaa u muuqda mid inta badan lagu dhaliilayo hanaanka ay dalka u hogaaminayso xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo Puntland ay ku eedeysay tanaasul la'aan iyo maroorsi awoodeed. dawladda Soomaaliya ayaa ka hadashay qariiradii ay Itoobiya ka tirtay Soomaaliya. dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Itoobiya ay kala hadashay sawirkii qariirada oo ay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ay soo daawacday, markii dambena ay ka saartay website-keeda. sawirka ayaa muujinayay Soomaaliya oo laga saaray qariirada laguna daray dalka Itoobiya. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Ambassador Axmed Ciise Cawd ayaa VOA-da u sheegay in markii ay ka war heleen qariirada la soo daawacay ay xiriir la sameeyeen Itoobiya, xiriirkaasi kadib Itoobiyana ay ka saartay website-keeda qariirada sida uu hadalka u dhigay. wasiirka ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ay cudurdaar Soomaaliya ka siisay qaladka sida uu hadalka u dhigay, wuxuuna intaasi ku daray in Itoobiya ay wado baaritaan la xiriira sababta ay arrintaasi ku dhacday. wasiir Cawd ayaa VOA-da u sheegay inay aqbaleen cudurdaarka Itoobiya ee arrintaasi ka bixisay oo ay aaminsan yihiin in falkaasi aan ula kac u dhicin sida uu hadalka u dhigay wasiirka.
tuhun xoog leh ayaa ka dhashay erey bixinta Mareykanka ee duqeymaha Soomaaliya. Mareykanka ayaa toddobaadyadii u dambeeyay kordhiyay duqeymaha dhanka cirka ah ee guud ahaan Soomaaliya ay kula beegsanayaan maleeshiyaadka Daacish iyo Al-Shabaab. ku dhawaad 10 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish ayaa lagu dilay howlgal uu Mareykanka isbuucyadii la soo dhaafay ka geystay gobolada Bari iyo Shabeellada Hoose oo ka kala tirsan Puntland iyo Koonfur Galbeed. taliska Mareykanka ee Afrika waa kan kaliya ee faahfaahinta duqeymahaasi si shaac baxsan bulshada ugu soo bandhigo iyadoo ay soo mariyaan war-saxaafadeed sadar ka mid ah aan waxba laga bedelin. balse sanadihii u dambeeyay waxaa ku soo kordhay bayaanada erey bixin cusub taa oo su'aale iyo tuhunba ay geliyeen qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha ammaanka ee ku nool Soomaaliya iyo caalamka. ereygaasi ayaa waxa uu yahay Decrete, halka ay joojiyeen adeegsiga ereyga defeat oo ay kolkii hore u isticmaali jireen ciwaanada war-saxaafadeedka lagu soo bandhigo khasaaraha gulufyada cirka ah. dadka aqoonta u leh luqadda naxwaha Ingiriiska ayaa ereyga Decrete ku micneeyay in uu yahay yareyn dhimis, si la mid ah ereyga kale ee defeat uu yahay jebin iyo ka taqluusid. farqi weyn ayaa u dhaxeeya dabcan. war-saxaafadeedyada ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in ujeedooyinka duqeymaha ay ka leeyihiin olole xadidan iyo mid argagixisada carqalad looga gelinayo aag xor ah oo ay dhaqdhaqaaq ku sameeyaan. baabi'inta hogaamiyaasha shabaabka waa nuqul yar oo ka mid ah war-saxaafadeedka Africom, si gaar ah marka ay soo saaraan faahfaahinta howlgalka ka dhanka ah Daacishta Soomaaliya. isagoo la hadlayay guddiga ciidamada aqalka sare, taliyaha Africom wuxuu si cad u qeexay in duqeymaha ay ugu talagaleen ku taageeridda dowladda Soomaaliya ee la halgamaysa dagaalamayaasha Al-Shabaab. taliyaha Africom waxaa sidoo kale intaasi u raaciyay hadafka duqeymuhu in uu yahay in dowladda ay dib u hanato goobaha ay Al-Shabaab qabsatay, wuxuuna meesha ka saaray in ahmiyadda koowaad ay tahay jebinta kooxdaasi. hal askari oo kaliya oo ka soo jeeda beelaha shanaad ayaa loo xukumay boqolkii bajaajle ee lagu dilay magaalada Muqdisho. tirada dhalinyarada ay ciidamada booliiska Soomaaliya ku dileen magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in ay gaarayso 103 qofood ku dhawaad hal sano iyo bar, waxaana markii ugu horeysay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya xukun ay ku riday askarigii ugu horeeyay ee dil qof shacab ah ugu geystay Muqdisho isla markaana ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya. maxkamadda ayaa go'aanka ku dhawaaqday Sabtidii, waxaana askariga dilka lagu xukumay la sheegay in qof shacab ah oo bajaajle ah uu ku dilay isgoyska Tarabuunka, qof kalena uu ku dhaawacay, waana askarigii ugu horeeyay ee loo xukumay dil bajaajle. askariga dilka lagu xukumay oo ah wiil dhalinyaro ah ayaa ciidamada booliiska isku dhiibay maalintii uu dilka geystay, isagoo ooyaya oo sheegaya in rasaasta ay uga fakatay. ciidamo ku sugnaa rugtaasi ayaa iyadoo ay dadweynuhu maqlayaan kula taliyay askariga in uu cararo, balse uu isagu go'aansaday inuu isu dhiibo ciidamada ammaanka kadib markii uu naxay isla markaana uu baxsan waayay. shabakadda wararka TV ayaa ogaatay in askariga oo ka tirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliya uu ka soo jeedo beelaha lagu yeero Point 5 ee la yaso, waxayna taasi dowladda federaalka ee Soomaaliya u fududeysay in go'aanka ay qaadatay maadaama aysan cadaadis kala kulmeyn beesha ninkaasi. shabakadda wararka TV uma doodayso in aan sharciga waxa uu ka qabo la marsiyo askariga dilka geystay, laakiin waxay ummadda Soomaaliyeed u iftiiminaysaa in weli ay shaqadooda sii wataan ciidamo kale oo dilal badan Muqdisho ka fuliyay kana tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya. taliya ku-xigeenka labaad ee ciidamada booliiska Soomaaliya General Sakiye Xuseen oo barteeda Facebook ku daabacday go'aanka maxkamadda isla markaana soo dhaweysay go'aanka maxkamadda ee xukunka dilka ah, waxaa darawal u ah askari booliis ah oo 3 bilood ka hor qof shacab ah oo bajaajle ah ku dilay isgoyska Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. askarigan dilka Howlwadaag ka geystay ayaa waxa qaraabo dhow ay yihiin General Sakiye, waxayna dilka kadib laga dhigay darawalka gaarka ah ee General Sakiye, waxaana arintaasi u xaqiijiyay shabakadda wararka TV abtiga iyo hooyada dhashay wiilka uu dilay darawalka Sakiye, kuwa oo lagu hanjabay in la xirayo ama la dili doono haddii ay arintaasi ka hadlaan ama ka harin. sidoo kale qoyskan ayaa shabakadda wararka TV u sheegay in 3 jeer ay la fariisteen Sakiyo kadibna ay ciidamada ku wargelisay in aan loo soo dayn karin qoyskan. waxaa halkaasi ku dhamaaday ama ay qoyska ku joojiyeen baadi goobka ay ugu jireen cadaaladda wiilkooda.
haddii ay shaqaynaysa cadaaladda Soomaaliya isla markaana dawladda lagu kalsoonaan karo hay'adaha garsoorka xagee ayay ku dambeeyeen dhammaan ciidamadii dilalka fuliyay dhowr jeer ayaa dawladda Soomaaliya fagaare ka sheegtay in la soo qabtay askar dil geysatay haddii ay cadaalad jirto maxaa maxkamad loo soo taagi waayay waa su'aalaha ay qabaan qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho wararka dibadda wararka TV saaka idin hayana waxaa ka mid ah ku dhawaad 10 qofood ayaa ku dhintay qarax ka dhacay wadanka Zambia 8 ruux oo meyd ayaa la soo saaray kadib markii ay ku qaraxday goob macdanta laga qodo oo ku taala bartamaha wadanka Zambia wasaaradda warfaafinta dalka Zambia ayaa sheegtay in baaritaan la wado bishii Febraayo 24 ruux oo si sharci darro macdan uga qodayay wadankaasi ayaa ku dhintay goob biyo xireen ah oo ku taala wadanka Zambia macdan qodayaasha sharci darrada ayaa ku batay Zambia kadib markii ay yaraatay macdan qodidii ganacsiga ahayd dhaqaale xumi dalkaasi soo wajahday waxaana dhowr jeer ku dhintay dalka Zambia dad macdan qodayaal ah oo si sharci darro goobo biyo xireen ah macdan uga qodayay dawladda Rwanda ayaa dawladda Uganda ku eedeysay in afduub ay ka geysatay xuduudka ay wadaagaan Uganda iyo Rwanda booliiska dalka Rwanda ayaa sirdoonka militariga Uganda ku eedeeyay inay afduubteen 2 ruux oo reer Rwanda kuwa oo xadka ka talaabay kadib markii ay martiqaad ka heleen saaxiibadood oo reer Uganda ah eedeynta ayaa ah calaamadii ugu dambeysay ee muujinaysa cilaaqaadka labada dal oo meel xun gaaray sabdidii mas'uuliyiinta Uganda ayaa militariga Rwanda ku eedeeyay inay toogasho ku dileen 2 ruux oo midna uu reer Rwanda ahaa midna reer Uganda uu ahaa kuwa oo ay sheegeen inay ku sugnaayeen gudaha dalka Uganda oo dhanka xadka ah Rwanda ayaa diiday eedeymahaasi Ugandana wali kama aysan jawaabin eedeymaha hadda loo soo jeediyay khilaafka soo kala dhaxgalay labada dal awgeed Rwanda ayaa xirtay xadka Kantuna si aysan uga talaabin baabuurta rakaabka ah iyo kuwa ganacsiga wada guud ahaan daawadayaal warkii oo aad kala socoteen wararka TV saaka waa naga inta